mara diilin dhaadheer inta deegta lagu sido daha calanka laga tolay reer bayoon dabaaldega danta guud hagaagtiyo dowlad waarta ha sugin waa hagaag soo dhawaada saaxiibayaal barnaamijkeena maanta wuxuu quseeyaa agast bisha 8aad ee bilaha milaadiyada bishan agast waxay noqotay bil ka duwan bilaha kale sidee ayay kaga duunaatay waxay noqotay bil ay Soomaalidii guud ahaan kala baxeen bil ay Soomaalidii kala guureen waa bil dabaaldeg Soomaalida guud ahaan way dabaaldegayaan dabigood waxay qaateen xurriyad waa maalinta xurriyadda reebel waa maalintii reebel reerihii dhammaan way dabaaldegayaan maamul goboleedyo reero qoys qaraabo guri walaga dabaaldegayaa bisha 1 ilaa dhamaadkeeda bisha 8aad ee milaadiga bisha agast waxay noqotay bil Soomaalida ay muujiyaan qabyaaladooda reerahooda iyo ma garanaysaa guryahooda dhammaan dadku way dabaaldegayaan waxay sitaan calaamad diilin dhaadheer leh waxa kale cajiib ah hal qof oo kamid ah ma wato calanka buluuga ee Soomaalidu lagu yaqiin qof kamid ah ma wato wax astaan oo Soomaalidu lagu garanayo guud ahaan waxay wataan calamo u gaar ah calamo gooni ah calamo laga soo minguuriyay Africa Asia Latin America iyo ma garanaysaa wadamada dunida calan waliba markaad eegto waa calan uu leeyahay wadan kale maxaa ku diiday baluuglo maxaa ka waday baluuglo ma garanayno kuwa ayaa ku soo wacaya waxay ku leeyihiin maalin hebel waa maalintii waa maalintii reerka waa maalin hebel waxaan rabnaa inaad ka soo qayb gasho oo maxaan kaga soo qayb galaya maxaan oranayaa qabyaalada la muujinaya haddaba taa dan ma noo tahay taa dan miyay noo tahay sharaf ma noo tahay horumar ma noo tahay Soomaalinimo ma tahay horumarna Soomaali ma gaarsiinaysaa wadajir ma keenaysaa maya ma keenayso ilaa lagu sii kala fogaada ma ahane cidi isuma soo dhaweynayso inaga wadajirna isku duuban Soomaali ah calanka buluuga haysana ayaan dunidii ka harnay waxna la qaybsan weynay inaga oo qoys waliba iyo guri waliba oo calan geesa samaystay iyadoo qof waliba uu sito mara u gaar ah ma u malaynaysaa inaan midnimo iyo horumar aynu soo kordhinayno maya asugin ma dhacayso macquul ma ahan maasaan hore u jiriyay erayo kamid ah ayaa ahaa mara diilin dhaadheer inta deegta lagu sido daha calanka laga tolay reer bayoon dabaaldega danta guud hagaagtiyo dowlad waarta ha sugin mara diilin dhaadheer inta deegta lagu sido daha calanka laga tolay reer bayoon dabaaldega danta guud hagaagtiyo dowlad waarta ha sugin ha rajayn dowlad waarta maamul goboleedyo maamul hebel calamo way ka tagtay hawshii way ka sii ballaaratay way ka sii fogaatay waxay noqotay reer hebel qoys hebel qaraabe hebel iyo wax la mid ah fanaaniin la keenaya heesa laga qaadaya waxaana la muujinayaa maalinta qabyaaladda talow laakiin aan ku weydiiya adigu reerkaaga yuu ka qaatay agast xurriyadda yaa guumaysan jiray reerahan yaa reer waliba gees u guumaysan jiray yaa weeye waxa gees u kala guumaysan jiray gaargaar iyo gooni u kala guumaysan jiray deetana agast u qeybiyo xurriyadda Soomaalida 1 agast ilaa dhamaadka agast xurriyadda loo qeybiyay reerka maan hebel waa maalinta reer hebel calan hebel wartaanaba daaweyso Soomaaliya dhalintii wadanka bedeli lahayd dhalintii laga sugayay midnimo Soomaalinimo iyo horumar laga sugayay halka ayay marayaan dhamaantoodna marya diilimo leh ayayna soo buufiyeen ayaa waxaad ku arkaysaa meelaha lagu dalxiiso meelaha sawirada lagu galo meelaha la isugu yimaado dhalinyaro xidhan jeetana sawirro ku galay qaar waxay ku oranayaan kaale sawirna la gal barnaamijkan ka qayb qaad tani dan noo ma dhalinyaroy hal baan idin sheegaya dal la yaqaan oo Soomaali la yiraahdo oo dunida ka soocan in aynu noqono waxa sabab u ahaa u dagaalamay u halgamay waa dhalinyaro ayaa u dhimatay dhigooda u daadiyay dhacaankooda u shubay tusaale hadii aynu ka soo qaadano dhalintii daraawiish dhalintii SYL haddaba adigu maanta maxaad wadankaaga ku soo kordhinaysaa maxaad wadankaaga u tartay maxaad dalkaaga bari lagu xasuusan doonaa marka aad dunidan ka tagto maxaad dalkaaga aad kaga tagtay oo dadkaaga aad kaga tagtay bari lagu xasuusanaya maxaa nabadayna maxaa soo jiidida waxa lagu xasuusanayaa inaad dadka kala fogeyso inaad dadka kala dheereyso inaad qabyaalad qurun
aad ka shaqayso haddaba Soomaaliya waxaad ogaataan calamadan iyo maryahan aad jiidaysaan wax qabyaalad iyo foolxumo iyo dulinimo aan ahayn oo soo kordhinayaan ma jirto wax wanaag iyo sharaf aad ka dhaxlayso shakhsiyadaada iyo reerkaaguba waxay ka dhaxlayaan ma jirto Soomaalinimada ha waarto midnimada ha waarto qof walibana waxa kula dardaarmaya dhalinta Soomaaliyeed in muhiimadooda iyo ujeedkooda waxa qof waliba kula dardaarmaya war waa tagaysay waxa ka haraan waxa ka haraya lagu xasuusanayana ha noqdaan wax wanaagsan oo ubadkaagu bari ay yiraahdaan aabahay ama hooyaday dalkan waxaas ayay u soo qabteen laakiin ubadkaaga yaysan kugu xasuusan in dadka aad kala fogeyn jirtay qabyaalada qurunka iyo xumaantuna aad ka shaqeyn jirtay waxaad ogaataa qabyaaladi inaysan waxba ku soo kordhinayn meelna aysan ku buuxinayn waxbana aysan ku galeyn